maalmahan warbaahinada caalamka waxay hadal hayeen Twitter-ka oo systemkiisa la jabsaday kadib markii la arkay dad weyn oo caan ah akoonadooda oo la soo dhigay postiyo isku mid ah oo scam ah. Dadkaas weyn waxaa kamid ah sida madaxweynihii hore ee Barack Obama, sida Bill Gates, ninka kale shirkadda Microsoft, sida ninka kale shirkadda Amazon ee Jeff Bezos iyo Elon Musk iyo dad badan oo kale. Dadka caanka ah haddaba hal mar ayaa waxaa la arkay postiyo isku mid ah oo la soo dhigay akoonada dadkaas. Message-daas waxaa kamid ah message laga soo dhigay Barack Obama oo ah haddii aad $1,000 kusoo dirtid adeegskan waa lagu laba jibaari doonaa. taasoo hackers u isticmaaleen dadka caanka sababtoo dadka caanka dad badan ayaa ku xiran sidaas darteed amana laga shakin doono dadkan waa dad millionaires iyo billionaires ah si dadka ee lacagto akoonadaas soo shubaan ee lacag u helaan. Waa qayaano cajiib ay degan hackerskan. Shirkadda Twitter oo la wadaagtay userskeeda in dadka hacking ku sameeyay ay yihiin social engineers. Markii hore waxay target ka dhigteen shaqaalaheena, kadib ayay waxay awood u yeeshteen in ay isticmaalaan aqoonsiga shaqaalaheena, kadib systemka ayay saas ku soo galeen. dhanka kale cybersecurity experts ayaa sheegaya in hackingkan uu ahay hackinkii ugu weynaa uguna cajiibsanaa maadaama hacking lagu sameeyay dad waaweyn oo caan ah akoonadooda oo weliba security-gooda adag yahay. sidaas darteed hackingkan zaid ayaa lagula yaaban yahay ee hackerskan ay sameeyeen. I've never seen anything quite like this. Typically, high-profile users like this are some of the most protected accounts on social media sites. dhanka kale expert kale ayaa sheegaya in hackingkan ku sameeyay ay yihiin younger people ayna awood u leeyihiin wax kasta ee shirkadda Twitter ay awood u lahayd in ay systemkaas ka sameyso ee ayagana awood u leeyihiin. Remembering they could do anything on Twitter, they chose to use these like quick hack mechanisms of making a little bit of Bitcoin, most likely done by some younger people, and this was the first thing they could imagine to make some money with. Fariintii ugu dambeysay ee Twitter ay la wadaagtay userskeeda ayaa ah in personal data ay la degeen user walba ay gacanta ku hayeen sida sawirada, contactska, videoska iyo other social media. muuqaalkan halkaas ayuu ku egyahay. haddii aad ka heshay like saar la wadaagna asxaabtaada.